kow factorieska enhance successful use of self learning bal qodobada kor u qaadaya inaad ku guuleysato self learning kaaga inaad naftaada balad wax barto kow time should be provided for the learning activity qofka markaa wax baranaya wuxuu markaa samaystaa waqtigaas oo markaa naftiisa wax ku bixinayo wuxuu markaa qofka clarify goals wuxuu cadeeyaa ahdaaftiisa and training process iyo habka uu markaa naftiisa u tababarayo ayuu markaa cadeeyaa wuxuu leeyahay qofkaasi self confidence kalsooni ayuu naftiisa ku qabaa wuxuu leeyahay self control naftiisa ayuu markaa maamuli karaya oo control karaya oo waxyaalaha qaar u diiday waayo aan ognahay naftu inuu iska jeceshay mar walba raaxada jeceshay inaad waxba qaban inaad meel iska fadhido inaad markaa dhamaan waxa soo dhan jeceshay nafteeda ogtahay self motivated naftiisa ayuu mar walba u dhiiri gelinaya waxa samayn kartaa waxaan qaban kartaa naftiisa dhiiri gelin buu mar walba daba wada qofkaas markaa kor waxa u qaadmaysa sal awoodi markaa wax ku baran lahaaba kor u qaadmanaysa obstacles in learning journey safarkaaga wax barasho caqabadaha ka hor imaan kara a barrier to learning is anything caqabada wax barashada ka haysan kartaa is anything waxay noqon kartaa waa shay kasta shaygaas oo that prevents ka hortagaya learner qofka bartay from being fully engaged inuu si dhameystiran in the learning process qaabku habku wax ku baran lahaa qofka wax bartay wax naftiisa wax barayay inuu markaa ay ka hor istaagto caqabadaasi way learning barriers can be caused caqabadaha inta badan wax barashada qofka ka haysan karaa waxay various factors qodobo aad u badan baa keeni karaya some are purely external qaar kamid ah si cad waxay uga yimaadaan banaanka kow tight schedule inuu jadwalkii oo kala adjectay inuu kugu adkaadaba oo adoo maanta subaxan wax qaybaya subaxii wax kale ka soo dhaxgalaan jadwalkii adkaado too much work shaqadii inay kugu badato saale gabadh baa tahay gurigii baad ka shaqaynaysaaba oo jadwalkii waxbarashada markaa kaaga adkaado lack of available materials in aad heli weydo agabkii aad wax ku baranaysay buuggii baad heli weyday qalinkii baad heli weyday oo ama technologieski sida laptopkii mobilkii waxyaalaha la halmaala ayaad heli weyday taasina waa caqabad aan soo faariyo sidoo kale way hadaba learning barriers ka laba qodob baa loo kala saaraa kow environmental iyo personal hadaba environmental learning barrier mid ka jirta deegaankaaga caqabad kaaga imaanaysa deegaankaaga environmental barrier include waxa kamid ah kow poor lighting room qol leerkiisu daciif yahay baad joogtaaba ama laambadiisu daciif tahay taasi waa caqabad overcrowded classes class markaa waxaad isleedahay wax ku baratid class meel ama goob waxbarasho oo markaa overcrowded aad la isugu badan yahay saalo kursibaad afar ku wada fadhidaan saddex shan ku fadhidaan aad ba markaa dhibaato noqonaysa ama classka aad buu markaa overcrowded yahay noise qaylo kale qaylaha hadii baxayso kale saayida marka waxba ka akhrisan kari meesha ama naftada inappropriate temperature aan kugu haboonayn oo kale inaad bal markaa iyada sagana aad wax ku baranayso iyaduna waa caqabad ka jirta markaa deegaanka way personal learning barrier caqabada markaa ka jirta shakhsiyadaadana iyaduna maxay noqonaysaa the most common barrier of a personal learning barrier is include caqabada ku barriers ku ugu caansan wax weey waa ta shakhsiyada naftaada haysata kow resistance to change inuu diidaba qofku inuu naftiisa isagu isbedelaba oo qofka haduu isbedelkii diido taas waa caqabad saa ku xidhan peer pressure inay aynigaagu peer waa aynigaagu ku saaraan markaa culays ku saaraan maxaad wax ka qaybisa maadaa gaaray casharkan akhrinayso lack of focus diirad la'aan meeshii aad diiradda aad saari weydoba meeshii markaa muhiimadu ahayd lack of previous knowledge ama aqoon markaa hore u lahayn tusaale English taaba kugu adkeedo maad baranba meeshan wax lagu baranayaa English baa casharada ay ku baxayaan marka taasina waa caqabad adiga ku haysta inaad markaa wax ka bedesho weey not understanding the importance of training naftaada inaad markaa tababar siisay muhiimadda ay leedahay qofka hadaan u fahansanaynba iyaduna waa caqabad markaa shakhsiyad oo taagan oo doonaya wax ka bedesho